Forex waa mid ka mid ah suuqyada dhaqaalaha ee ugu waaweyn adduunka. Suuqan wuxuu kuu oggolaanayaa inaad lacagaha kala duwan ee waddamada aad sarrifto oo aad faa'iido ka raadiso isbeddelka sicirka lacagaha. Laakiin sidee ayuu Forex u bilowday? Halkee ayuu maanta marayaa? Inta aad daawanayso muuqaalkan, waxaad ogaan doontaa taariikhda suuqa xiisaha leh iyo sida uu u noqday midka ugu weyn ee dhaqaalaha caalamka. Suuqa Forex wuxuu si rasmi ah u soo bilowday sanadkii 1971 kadib markii heshiiskii Bretton Woods la joojiyay. Heshiiskan ayaa ahaa mid lacagaha caalamka ku xiray dahabka, laakiin markii uu dhammaaday heshiiskan, lacagaha ayaa xor u noqday inay qiimahooda beddelaan iyadoo lagu saleynayo dalabka iyo baahida suuqa. Ka hor intaan Forex ganacsi rasmi ah noqon, ganacsiga lacagaha wuxuu ahaa mid xadidan oo u badnaa dowladaha iyo bangiyada waaweyn. Laakiin markii uu furfurmay suuqan, shirkado yaryar iyo shakhsiyaad gaar ah ayaa sidoo kale bilaabay inay ka qayb qaataan. Maanta suuqa Forex waa midka ugu weyn adduunka, waxaana maalin walba la dhex mariyaa in ka badan 7.5 trilyan. Waa suuq furan 24 saac, laga soo bilaabo saq dhexe habeenka Isniintu soo galayso ilaa habeenka Jimcaha, taasoo ka dhigaysa mid aan hakad lahayn. Ganacsatada suuqan ka shaqaysta waxay isweydaarsadaan lacagaha kala duwan ee dalalka sida dollarka Mareykanka, Euro, iyo Yen-ka Jabaanka. Horumarka tiknoolajiyadda, gaar ahaan internetka iyo qalabka casriga ah, ayaa Forex ka dhigay mid uu ka shaqaysan karo qof waliba. Hadda waxaa fursad u leedahay inaad Forex ka ganacsato adigoo gurigaaga jooga oo isticmaalaya moobilkaaga ama kombiyuutarkaaga. Forex waa suuq leh fursado badan, laakiin sidoo kale waa mid khatar ah. Ganacsatada guulaysta waxay bartaan cilmi qoto dheer oo ku saabsan suuqa, waxayna adeegsadaan xeelado taxaddar leh. Waa muhiim inaad si fiican u barato oo aad khibrad hesho ka hor intaadan bilaabin ka ganacsiga suuqan. Forex waa safar xiiso leh oo ay tahay in lagu galo aqoon iyo faham badan. Maanta suuqu wuxuu noqday mid qof waliba fursad siinaya, balse waa inaad diyaar u ahaataa inaad waqti iyo dadaal geliso. Haddii aad qorshaysato inaad suuqan ka shaqaysato adigoo raacaya xeeladaha suuqan looga shaqaysto, Forex wuxuu kuu noqon karaa fursad wanaagsan oo dhaqaale. Haddaba diyaar ma u tahay inaad ka qayb qaadato suuqa ugu weyn ee dhaqaalaha caalamka, kaasi oo gudihiisa la dhex mariyo maalin kasta lacag kor u dhaafaysa 7.5 trilyan?